halkan ka salaamaya marka ugu horeyso mas'uuliyadda macallimiinta iyo waalidiinta aadka u qiimaha badan ee soo tartibiyey ardada maanta waxbarashada heerkaa sare ee gaarsiisan tahay annaguna dadaalkii macallimiintii joogay ee kusii saaciday ama ay ku caawiyeen inay ardadii soo baxaan maanta ee halkan hadiyado ku qaataan si hore u dhici jirtaba haddana in ay sidoo kale u qaadan doonaan insha allah waxaan hambal u dirayaa halkan ugu dirayaa ardadii guuleysatay ku guuleysatay muxuu aqooneedkii in badan soo socday macallimiinta sharafta lahaa iyaguna waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiina halkan ayaa looga jeedaa allana waxaan kaga barayaa macallimiinta ardada dhammaan waalidiinta soo dadaalay inuu ilaahay iyaguna garabkooda galo annaguna insha allah inuu ilaahay garabkeena qabto si aan mas-uuliyaddii maanta madaxdan ka saaray madaxa meel ka sareeya oo la saara gacan ma jirto maadaama mas-uuliyadda madaxa naga saartay insha allah waxaan ku dadaali doonaa in mas-uuliyaddaas aan u guudano sida ugu waajibka mudan ama ugu xaq leh allana uu naga risiiyo insha allah waajibkaas aadka u weyn oo qof walba mas-uuliyadda maanta la saaray uu dareensan yahay mas-uuliyaddii la saaray macallimiintii maamulkii ay dareensan yahay mas-uuliyaddii maanta la saaray madaxa ka saaran in mas-uuliyaddaas ay ka soo baxaan maanta inay jecel yihiin waalidiintuna garabka ay noogu siinayaan ardada soo kala dadaalayaan maasha allah hambalyadaas aad u qaaliga waxaan u diray dhammaan iskuulka 12 Oktoobar iyo dhammaan sharaftii kasoo gashay halkaan la joogtay ardada qiimaha badan weliba qurqurxoon ku jeedo marka aada maasantihiin shukran soo dhaweynta iyo mashaacirka inay ahayd aada soo dhaweysay in ku dhacday sharfo insha allah idinku kuu sharfta binaanka lagu soo dhaweeyaa noqon doontaan ayaan rajeyn doonaa insha allah bina noqon doontaa madaxdii dirtood anaga dhexda ahayd ama madaxweynihii oo artiisa ugu maarmay insha allah ayaan noqon doontaa rajeyn doonaa maanta aqoontii ay yeelateen waxaa idinka rabaa beri inay ku nafciyo ama waalidiinta haddee noqon lahayd waalidiintana waxaa u tartaan beri laakiin ha noqonina dadka maanta dadaalka dheeriga ah loo baxshay oo loo dadaalay oo loo ururdaayay inay noqotaan oo birdu waxbarashadii dib uga dhacay ama dib uga haray oo waxbarashadii ka niyad jabay ayaana noqonin waa iga dandaaran haddaa maanta aanay degto iyadu ay kaa dhigto waxaa weeye dib dab ugu soo kobci jirto muhiimadda waxay tahay maanta dadaalka lagu bixinaayo waa inaad adigu garataa waalidkana waa inuu gartaa maanta dadaalka ardayga lagu bixinaayo waa inuu dareemaa waalidka dadaalka saamixay hadduu waalidku usu dareensaneen ardayga uu dadaalaya dhibeelada ardaygii uu dareensan yahay waalidku usu dareensanaya dhib weeye macallimiinta dadaalkii og yihiin waalidkuna uusan ogeyn macallimiinta dhib weeyaan iyaduna maamulkii iyo macallimiinta iyaguna insan soo dhawaatay marka insha allah sidaas ay soo wadahay oo dhammaantood hadda iskula shaqeynayno waxay rajeyn doonaa insha allah inuu yahay garabkan soo u geli doono oo sidaas ka fiican oo shaqeyn doono